Soomaaliya ayadana isuma maqna mana loo maqna marka hore ummad kasta ayada isu maqan qof u maqan lama arko. Yahya was an enthusiastic worker for the cause of peace in Somalia, and it was that cause that he paid the ultimate price. Somalia lost him at the time when someone like him was needed the most. The shock waves of his tragic death were felt not only in Mogadishu, not only in Somalia, but all over the world. I remember Yahya, the week before, we had a meeting in Windsor Club, strategic meeting for WSP affiliates, and I recall Yahya, I left him back in Mogadishu and I came first. And he stayed there because of a number of issues. He was very much deeply engaged a potential reconciliation in Lower Juba and Middle Juba of Somalia. He has met the most senior individuals his own time. No one asked him to do it. It was an opportunity. He always believed there is an opportunity to do something good. And someone has to take that opportunity. And Yahya has that heart, a heart where I don't know if Somalia will ever produce another son like this Yahya, an amazing human being. dowladda Mareykanka waxay nagu samaysay wax la yiraahdo containment iyo deterrence. Containment ciidana u jooga Djibouti, ciidana u jooga Ethiopia, ciidana u jooga Kenya, ciidana badda Indian Ocean. That is containment. meel walba naga xiga waxaana ku baxda $200 million. waxay yiraahdaan ninka dukada oo aragto oo gar leh hadda xooshida gar ku leh oo kale hala soo qabto. And it happens until today. magaalada Muqdisho in particular garow hadda ka guureen iyo Boosaaso way ka soo tagaan because waxay yiraahdeen all of them dadka meesha jooga waa wada khiyaaneen because waa isku wada mid warniyo waxaad garan weysay dadka Soomaalida wada Islaam yihiin please ma dhageysanaya. waxaa laga dhoofiyaa dalka female livestock which is illegal. nidaam dawli ah oo ogol waxaas ma jiro. waxaan dhoofinaa 185,000 tons every 6 months oo dhuxula. waxaan soo import gareynaa 40,000 tons of sugar. The trade imbalance and the destruction on dalkeenu ku sameynaya $70 million lacaga ayaan dowladda Kenya iyo Ethiopia uga soo gadanaa jaad. ayaga ana waxba kama gadan. waxay naga gadaan especially dowladda Ethiopia more than $1 million almost every 3 months oo hub on top of kuwii hore aan weyn plus Yemen oo trade looga keeno. waxaan dhoofinaa human trafficking. wuxuu kaloo dalka noqday meel la mariyo drugska adduunyada looga dhoofiyo. waxaa ku yaala nearly 200 airstrips throughout Somalia. Nobody controls it. Abdulkadir has been an organizer, he has been a mobilizer, shaper and facilitator of many social actions taken to highlight current issues or to diffuse tensions. He continued to do so until the final hours of his life. Somalia waxay u eedeysan tahay shacbigooda oo dhan. shacbigaas wuxuu u eedeysan yahay amuur aysan ayagu ka arrimin. inaad reer hebel noqoto adiga kama soo arrimin. inaad degaan meel Soomaaliya qayb kamid ah degto adiga kama aadan arrimin. laakiin nin kamid ah dadkaas Soomaalida ku nool ayaa amuur intuu isu duwo isu keeno ayuu ama dambi ku galaya ama wanaag ku keenaya labadaba u eedeysana. It's one of those unique characters that you rarely see in human beings. That someone who is frank, who is able to tell everyone, but who is always a friend of everybody. caadada Soomaaliya ma ahayn dhaqan oo ma lahayn ninka wax dila inuu dadka iska dhex maro. qof la hadlayo si jirin. dadkii dad nool oo xayya oo sharaf leh oo diin iyo caadad iyo dhaqan la waay. waa ka sheekeynayaan dhibaatada waa sheegayaan xumaanteeda waxba kama qabanayaan. waxaa kamid ah dadkaas anaga kamid ah idinka kamid ah inta naga maqnaa kamid ah. haddii hadda Soomaaliya dawlad hesho hadday hesho dhibka ugu horeeyo yaal waxay dadku haweysan yahay hubka qaadaya sidee isku aaminayeen hub
isugu dhiibi doonaan siday u heshiin doonaan ninka Soomaaliga ama gabadha Soomaalida ay dhul guri aysan lahayn haysata sidee loo oran karaa warheedna sidan dhaqan maaha diinna maaha oo xataa reerkay ka dhalatay dhigi kara war waa khaldan tahay meel u kaadee xogaa meel fariiso arrinta hadda qodobka laga hadlayo oo ah dib u heshiisiinta rag iyo dumar culumada dadka kale wax garadka Soomaaliya qof walba waa og yahay inay muhiim tahay qof walbana waa sheegaya muhiimadeeda dadaanan heshiis ahayn waxba isku darsan karaan waxna ma dhisi karaan marka hore haddii markii hore ay maqneed idaaradda hogaamin lahayd dadku inay heshiiyaan hadda marka oo ay xukuumadda jirto baarlamaanna jiro waxaa laga doonayaa ila tahay Soomaaliya macnaamka dawliga oo hadda lagu heshiiyay in commission loo sameeyo ka koobnaanayso waa inay yihiin dadka wax u sheegi kara marka hore waa inay noqdaan dadka u cuntumi kara qof aan haddaan arka dhigi karo qofkan waa qof aan aamini karo aqoontiidana leh ixtiraam iyo sharafna ku leh mujtamaca dhexdiisa dawladdu haddii ay yeelan weyso cod iyo approach kala tone and approach or reconciliatory haddii yeelan weyso ma shaqeynayso marka dawladdu waxaa laga rabaa inay yeelato tone iyo approach or reconciliatory oo ka khaldamay dawladdii laga soo dhisay aragtay Mr. Yahya, may his soul rest in peace, has contributed to the realization of women participation in rebuilding Somalia. His encouragement on gender equity and inclusion of women in politics and peace-building process is unforgettable work that all Somali people will remember. xadgudubka loo geysto haweenka in terms of human rights guurka furiinka waxa haddii dhaxal u yimaado waxa iyada ay markaas leedahay sida ay waxaas u hogaamin lahayd yay uga dacwoodaan haweenka haddii hadda dhib gaaro iyadoo aysan dawlad jirin dunuubtaas ku dhacaysa haweenka markii dawlad timaado sida loola xaalaya yaa waay cidda markaas laga rabo inay u hadasho arrimahaas yaa waay cidda la rabo inay tallaab ka qaado ma waxaa laga dhigayaa mawduuc la iska ilaaway gabadhii sharafkeeda lagu tuntay la kufsaday ama ninkii guursaday wixii xaq u lahayd intay ka weyday uu ka tagay I have been working with Yahya in the past 5 years and I do not remember any one single time when I was not happy with working him. Yahya was a trainer, an expert facilitator, and someone who coaches the people who work with him to enhance their performance in their duties. He was someone who likes the people to be happy. He was someone who always likes to address the concerns of the people. He always tried to assist the people to get what they are striving for. Here, he assisted the researchers in performing their duties. He make them do better and make a difference in the ground. A time when circumstances were very hard, the team Yahya leads, I can say, were the first group who established a political space where there was no one in the past, and then he supported them to manage that political space as a neutral, non-aligned, non-affiliated to any of the political groups or factions that exist in the ground where this team were operating. Everybody in the team was proud of working with Yahya, and I hardly remember when there was anyone in the team that needs an assistance and Yahya was not with him. Yahya was always a one liked by everybody in the different hierarchies of the institution.
from the lowest level to the highest level, everybody was a friend of Yahya. And I'm sure everybody